بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا عشرة امتحانها la xiriiray maamulka iyo maareynta ganacsiga qaybaha hadda maanta ka hadlayna insha Allah waxa waaye ma horena uga soo hadalnay qaybaha la xiriira macaamilka waa kuwa macaamil muxuu macaamilku muhiimad leeyahay ayaan ka soo hadalnay maanta waxaan ka hadlaynaa macaamilku meeqa ayuu u qaybsamaa عشرة أنت نقلين سجوده هربعة ده نقولش يا عامل حقوق السماء لا وقيبت أيوة قيب السماء عامل حقوق السماء لا وقيبت عامل هذا أديك الشركة استعماله أما برودكت استعماله يوم عامل صوص عضه وولي استعمال أديك الشركة عن استعماله لكن مستقبل كده رجينا إنه أديك صو استعمال الدوام اوكي meeqa ayuu macaamilku u qaybsamaa macaamil waxa u qaybsamaa mar laba qaybood oo waaweyn ayuu u qaybsamaa koow macaamilka isticmaala adeega yani waa macaamilka adeega hadda isticmaala waa macaamil hadda adeega ama badeecada isticmaala oo lacag ku siiya adna aad siiso badeeco ama adeeg isla markaana hadda aad si toos ah kula jooga kaas Allah macaamilka oo macnaha isticmaala adeega macaamilka adeega isticmaala Allah kaas yani hadda kula jooga ninkaas waxba ka gataa alaabo halkii ka gataa markaas lacag ku siiya midka kale waa macaamil aan wali gadan adeega ama badeecada kan waa macaamil awooda in uu iska baxsho lacagaha ama qarashaadka adeega ama badeecada joogto laakiin aan gadan ay Allah waa potential customer Allah macnaha waxa awoodi waa leeyahay wixii waa haya laakiin sabab kale ayaa ka hortaagan oo u gato mesela asaga waxa laga yaabaa inuu shirkad iska neceb yahay ama waxa laga yaabaa inuu macnaha waxa adiga aad bixiso oo wax on ku qaba xasaasiyad ku qaba ama wax on si ku qaba marka taas laha okay labada macaamilba marka maxaa loo qabtaa labada macaamilba waa la wanaajiyaa labadoodaba midka adeega isticmaala iyo midka aan adeega isticmaalinba labadaba waa la wanaajinayaa okay marka waxa laga yaabaa in uu adeega qaato ama badeecada hadii la wanaajiyo macnaha qofka macaamilka hadda kula jooga waaba la gartay ninkaas waa macaamilka oo la siistiraaba inuu simkaarkaaga ama adeegaaga si haysta rabtaa ama badeecadaada ama xawaaladaada inuu si haysta rabtaa okay marka ninkaas waaba kula joogaaba kaliya wuxuu kaaga baahan yahay xogaa tirtirid iyo naashnaashid yar ayuu kaaga baahan laakiin macaamilka aan isticmaalin adeegaaga waa la market gareeyaa waa la wanaajiyaa waa lagu celceliyaa sababtu waxa waaye bari waxa laga yaabaa inuu badeecadaada u soo baahdo oo is yiraahdo wararkii ku wanaajiyo asxaabtaada ah bal maanta u tag inuu is yiraahdo okay marka inuu is yiraahdo saas laga yaabaa okay macaamil gudaha iyo macaamil dibadda ayadana waxa waaye waa qaybin kale waaye macaamil gudaha ah waa macaamil si dadban ama si toos ah shirkadda ula shaqeeya sida shaqaalaha iyo waxa kale oo kamid ah shirleyda shirkadda macaamil gudaha waxa uu noqon karo dadka shirleyda ah dadka shaqaalaha ah ayaa shirkadda bahalkii u noqon karo macaamil gudaha ah macaamilka dibaddana waa macaamil si toos ah aan shirkadda ula shaqeyn sida dadka gata alaaba ee shirkadda ka baxsan maalgeliyaasha kamida wadanka kamida maalgeliyaasha wadanka dadka ku siiya alaabta aad isticmaasho ayaa lahaa okay marka macaamil mar waxaan u soo qaybinay laba qaybood waa macaamil customer kula jooga iyo customer aan wali aan adeegaagi oo si gaarin mid labaad waxaan u qaybinaa macaamil gudaha ah iyo macaamil dibadda ah okay
in terms of nature marka xaaladda iyo sayhiin xaaladooda hadii laga sheekeeyo waa 10 kale insha Allah mar kale markii aan ka hadli doona waxa jiro dad oo uga sheekeeya in terms of nature qofkan macnaha macaamil xanaaqsan miya macaamil dabeecad kulkul miya macaamil tuuga miya macaamil fiican miya dad noocaas halkaas oo ka qiimeeyaan waa jiraan laakiin muhiimadda ugu weyn waxa waaye macaamilka inaad fahanto laba inuu yahay mid adeegaaga isticmaalay badeecada iyo mid aan wali aysan gaarin marka meesha gaaba kaaga jiro hadii aysan gaarin maxay u gaarowaysaa gaaba ku jiro marka idinka la ka rabaa insha Allah inaad si fiican la iskareysaan ayuu ma santiin wixii u baahan buuga markaas ay naga soo xiriir karaan